fadhigii saaka ee Golaha Guurtida Jamhuuriyadda Somaliland oo shir Guddoomiye xigeenka koobaad ee Golaha Guurtida Somaliland Mudanayaasha Ali ayaa Guddoomiye xigeenka koobaad Mudanayaasha ku wargeliyay in Nuxurka kal fadhiga Golaha Guurtida uu ka hor akhrin doono xogayaha guud ee Golaha Guurtida Somaliland Cabdinaasir Aadan Beegsi golahan uu ka doodi doono sidoo sharcigu yahay dhanka kale waxa halkaasi Golaha Guurtida Jamhuuriyadda Somaliland ay soo dhaweeyeen habka loo raafayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee ku sugan سناج السوماليلان حتى بوقرنتي وحالكاسي كادلي قدوميها Golaha Guurtida Somaliland oo kal fadhigan faahfaahiyay waxaan hadaladiisi kamidha mudanayaal fadhigu waa in loo furan yahay waxaan la soconaa fadhigan inoo ku xigay waxa aynu bixinay sawiruntii gudiyada ee nuxurka ka fadhiga ay guddi kastii u soo ururiso talooyin uga soo jeediso qodobadii kaga aadnaa ajandaha ee goluhu uu ka dooday gudiyadu markii ay soo ururiyeen goluhuna uu si fiican u dersay waxaan u qabanay ad hoc committee guddi gaar ah oo haddana isku soo wada ururisa oo talo ka soo bixisa oo nuxur midaysan ka soo saarta aragtiyihii iyo xogihii ay gudiyadu soo ururiyeen guddigaas oo ka koobnayd xubno ka socda shanta guddi hoosaad ee golaha guddiga nabadgelyada guddiga shuruucda guddiga dhaqaalaha guddiga arrimaha dibadda gudiyadaas iyo xogeynta golaha xogayaha guud xogayaha ku-xigeenka iyo agaasimaha waaxda hadal qoraalka kuwaasoo aan muddo siinay muddadiina ay maanta ku eg tahay waxaa maanta markaa aynu gudagelaynaa soo ururintii iyo midayntii ay ku soo mideeyeen xogihii ay gudiyadu soo ururiyeen way soo diyaariyeen guddiga xogeynta waxaan faraynaa inay qaybiyaan koobiyada marka la qaybiyo oo xildhibaan kasta uu koobiga qaato waa laga doodayaa waxa laga doodayaana waxa weeyaan waa soo jeedimaha maaha bodiga qoraalka maaha waa soo jeedimaha laga soo jeediyey talooyinkii laga soo jeediyey wixii lagu daraayo iyo wixii laga dhimaayo iyo wixii markaa macquul oo la raacinayo waa mahadsantihiin inta inaan gudagelin xogayaha guud baa si brief kooban ah uga soo jeedinaya ugana warbixinaya qoraalkii ay soo jeediyeen gol ahaan laydin siinayaa ilaa iyo sabtida inaad qoraalka ka soo baaradigtaan waa talooyinka oo keliya tala soo jeedimaha oo keliya weeyaan go'aanku waa go'aan isagu goluhu gaadhay tala soo jeedimaha wixii aad ku dareesaan iyo wixii aad ka saareysaan iyo wixii qoraal ahaan aad ku saxeysaan ayaa idin furan marka intaa ka soo fekera intaa soo diyaar gareeya sabtida waa golaha ayaa la horkeenayaa wixii talooyinkeena deetana waan ansixinaynaa goluhuna saas uu noogu xiran yahay salaamu calaykum Subayr Maxamed Maxamuud Subayr Galayd wararka Iftiin Somali TV Hargeysa